وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي. إن شاء الله تعالى دمان ولا لا وحن ليهي برايفت مسج هذا نوصل إن شاء الله تعالى كدب ستوصة واحد يكون جواب دونا لو ذي علماء الله سبحانه وتعالى هاي نوع حفظيه. شيخنا سؤال هذا نكوه مرة وحلا هاي شيخ فيسبوك سبع أسطورا مصادق كذا. شيخ حملي تفضل. هذا يقوي أنا كوي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. قبلنا مسلمات ده وقبل ما في ليا. صح. قبلنا مسلمات ده سيدي ده. وجوهرة. ولول. وذهب. ودائما. وشيئا الدون كاللجيه الكريم وي. قبلنا الصوماليات ولي بخاصة مسلمات ده الصوماليات. قبائل كانوا إسدليبا لوه شيء شيء. قبلنا الصوماليات. وبدبادة أمضوي. صدرات. inay meelahan babliga ah ee dad walba ay arkayaan isa soo dhigto waxa weeyaan kuma talinayno mana ku naseexaynayno xataa hadday asturanta meeshani meel adduunka oo dhan wey waad ogtiinoo maanta sawirkaaga sida la doono ayaa laga yeelayaa sax waad ka wanaagsan tahay waad ka fiican tahay waad ka qiimo badan tahay dadka kuwa soo dhigaya iyagoo qaaqaawan taasi waxa weeye waa mas'alo kalaba laakiin adigoo asturan ma soo dhigi karaa xataa kuulama talinayo wallahu aclam. جزاك الله خير الجزاء شيخنا. سؤالها سيفينا إن شاء الله. شيخ الدكتور شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل مسلمة ربي يا الرسول رميسن ما أنت قيامنا الرميسن inay dhiman doontana og qabri iyo qiyaamana inuu sugayo og horta waxaa la doonayaa inay sharciga islaamka ay tixgeliso muru'ada inay ilaaliso dhaqanka wanaagsan inay ku dadaashiyo akhlaaqda wanaagsan baa yaa aad iyo aad loo doonayaa allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu gabdhaha muslimaadka ahee mu'minaadka ahee qaanitaadka ahee xaafidaadka lilghaybi uu amray إن أي قريوه كسقنادان وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قريوه إني كسقنادان هدي أي دن كنتو أي دبد أسو بحان أي وحبرش سو آدان أي شق سو آدان أو أي زيارة سو آدان أو أي عبادة كلي وحيابة كلا أو أي دبد أسو بحان قريوه دان الشرعي وإني إلاليان إي حجابك إي آدابك iyo haddii ay gabadhu zawjo tahay inay zawjkeeda ka idan qaadato marka gabadh muslimadda anu sabab ay sawirkeeda meel public ahoo alqaasi waddaani alkaafiru waalmuslimu alfaasiqu wagayruhu ay wada fiirsanayaan waxa ay u soo dhigto waxaan u malaynayaa inay tahay inay gabadhu sharaftii ilaahay uu sharfay aljawhara almaknuuna kama qaala shaykhi wa xabiibii sheekh abu talxa الجوهرة المكنونة وي والذهب قبضا وجوهرة ده وحاوي مركا لقضينا بور با انت لك لدلاعيا سلعة يا سحرير يا ماشي الذهب كان لقى كينا يا الله يا بيسا دولك عادي قال لك مهلا اسما بورا لدلاعينا يا مركاسا اسوو خام الله صوب حين يا هدو مركي دلاليو الله شيلنا وحاوي او ذهب نقضنا وواحد دونك او قالسا او دور صندوق دحدود با لا غلينيا kabadhada la dhex gelinaya marka gabadha muslimadda waa jawharadaas jawharta iyada ahna inay cid walba la iska siiyo la yiraahdo hoo hadda cad yaro dahab hadaad haysato inaad intaad meelaha soo dhigtaad rabto qof walbo daawo ama qof walbo hoo macquul ma waxa yar hadii wax qaali ah marka gabadha muslimadda ka qaalisan inay jirkeeda xifdiso inay suuradeeda iyo sumcadeeda xifdiso inay anshaxa iyo aadaabta iyo akhlaaqda islaamka ay xifdiso ayaa la doonayaa oo sawirkeedu uusan meel walba uusan oo lin ilaahi subxaanahu wa tacaala
gabdhaha muslimaadka iyo ragga muslimiinta ahba ha noo xifdiyo آمين آمين جزاكم الله خير الجزاء